asxaabay xalay run ahaantii waxaan ugu ciyaartay labadan koox aad iyo aad ayaga xumahay. Kooxdan aad ujeedda hadda Brighton 90% qof kasta wuxuu filaya inay badinayso. Waa kooxdii kulankii ugu dambeeyay Liverpool 2-2 la soo gashay, weliba iyadoo away tahay Liverpool aan naqaan inay tahay kooxaha ugu awood badan horyaalka Premier League. Newcastle xalay sidoo kale badisay u qalantay runtii markii runta la sheego. intaa kadib sidoo kale Real Madrid way badisay Juventus, sidoo kale double chance noo saar hal iyo eber ku badisay. Atlanta sidoo kale to inta ku soo galiilay sidoo kale ku guuleysay Paris sidoo kale to Wolfsburg sidoo kale to Chelsea marka saara double chance dad badan ilaa yaabana. Chelsea loo yaaka inay hayso horyaalka Premier League iyo Burnley oo ku jirto horyaalada horyaalka Premier League kooxaha ugu hooseeya haddana waa ka hal iyo hal la soo gashay. Okay, Manchester City sidoo kale way badisay, Crystal Palace sidoo kale to kooxdan ayaa ugu ciyaartay sidoo kale to awoodeeda waa filanay, laakiin FB-dan Stuttgart ayaa ugu ciyaartay. Sorry, marka waxaan filaynay inay badinayso. sidoo kale dibadba Alves double chance noo soo badisay, Bayern sidoo kale to kala badinay waa badinay. Marka hadda kadib shaxda kooxaha inkastoo dhamaantood la isku halay karin, laakiin waxaan ku dadaali doonaa kooxaha inaan ka soo yareyno 190 inaan ku dadaalno wing. Waa mahadsantiin.